munaasabad ballaaran oo lagu sagoontinayo in ka badan 24 arday oo fursad waxbarasho ka helay wadanka Turkiga kuwaasi oo ay gacan ka siisay Sahal Enterprise oo inta badan ardayda jecel inay wadanka Turkiga wax ku soo bartaan caawimaad siisa waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay arday waalidiin iyo marti sharafaad u tira badan ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Maxamed Cabdiraxmaan Foodcade iyo sidoo kale Mursal Saciid Cabdi oo kamid ah saraakiisha Sahal Enterprise halkan waxaan ku sagoontinaynaa 24 arday oo u baxaya dalka Turkiga oo fursad waxbarasho ka helay dalka kadib markay u fadhiisteen imtixaan muddo sugayeen fiisaha ay tahay habeenkoodii sagootinta bixitaankooduna ku aadan yahay maalinta Sabtida 22 bisha 2019 oo ku beegan maalinta Sabtida hadii la yiraahdo waa bisha December waxayna gula sugan waalidiinta qayb kamid ah ardayda qayb kamid ah oo dhamaantood sidaan filayo 2-3 arday mooyee ay imika ku sugayeen howlka gudihiisa idinku bixitaankiina wuxuu ku aadan yahay maalinimada Sabtida muddo badan baad soo samreyseen diyaar garow badan baad soo marteen imtixaan US baad soo fadhiisateen waa sugteen qaarkiin waa weydeen waa ku celiseen mar labaadkii waa hesheen falilahi alxamdu caawa waxaan u fadhinaa idinka sagootintiini taana waan ku faraxsanahay annagu marna waxaanu leenahay rag dalka wax soo baranayay habla dalka wax soo baranayay baad tihiin kulli dad soo noqonayana waa u eegtihiin oo wajiyadiinu rag markii hore wax baranayay habla wax baranayay baad tihiin maasha Allah waxaan rajaynayaa si qurux badan inaad waxbarashada uga faa'iidaystaan waxaan idin kala dardaarmayaa kulli waxaad tihiin arday baad tihiin waqti badan baa laga yaabaa in waano iyo tacab iyo dardaaran la idin soo galiyay haddii macallin yahay iyo haddii waalid yahayba waa la idin la soo dardaarmay waxyaabaha la idin kula soo dardaarmaya waxa weeyaan qofka bini aadanka ah marka uu doonayo inuu guul gaaro inuu horta yeesho inuu isagu aragti yeesho xor ah inuu aamino horta isagu inuu is aamino inuu yahay qof gaari kara guusha uu doonayo haddii uu noqdo qof go'aanka uu leeyahay isagu aan lahayn uu leeyahay saaxiibkii ama go'aanka aan isagu lahayn ay leeyihiin dad kale oo isaga aan ahayn inay weyga uu doonayo ama wadada uu ku socdo u saxeexa ay go'aankiisa leeyihiin go'aanka adigu melihiido go'aanna kuma gaadhaysid guulo kuma gaadhaysid qofka bini aadanka waxa wanaagsan inay isaga ka soo go'do inuu wax barto marka aan leeyahay inay isaga ka soo go'do inuu wax barto waa inuu go'aanka isagu leeyahay naftiisa waa inuu horta isagu ku kalsoon yahay inuu wax baran karo guul gaari karo wax ka midho dhalin karo wax badan ba halkan dardaaran waalidku idinka jeediyay dardaaranka waalidku idin soo jeediyay waxa weeyaan kuwa badan wax laga yaabaa in idinkoo guriga jooga leedin la dardaarmi jiray laakiin caawi way ka duwan tahay waxa weeyaan waxyaabaha xusuusaadka aan la ilaawi karin waxa kamid ah qofku markuu ama heer jaamacadeed uu bilaabayo orientationka ay jeedinayaan ama waxa la yiraahdo wacyiga meesha ka jira ee macallimiintu jeedinayaan wax laga yaabaa inaanu ilaawin qofku taariikhaha ugu qaalisan adduunyada ee laba shaqsi soo wada marana waxa weeyaan waqtiga waxbarashada waxa tageysaan dal shuruucdiisu step by step lagu dhaqmayo innaga marka loo eego Somaliland ama geeskan Afrika ba loo eego waxa laga yaabaa wax badan oo shuruucda kamid ah inaynu siyaabo kale u mari karo laakiinse dalkaas waxa laga yaabaa shuruucdiisa by bit ama waxa weeyaan talaabo inaanu qofku inuu u wajaho oo aan laga yeelayn inuu intuu talaabo ka soo goodo inuu meel kale process ka sii bilaabo wax ka sii bilaabo waxa laga yaabaa arday badan oo jaarkiina ama guriga idinku xiga hadaad sample imika u soo qaadatid inaanay awoodin inay nolosha caadiga ah ay kafeeyaan adiguna waxa tahay arday waalid baa kugu tabcay maanta waxaad kafeysay inaad dal Yurub wax ku soo baranaysid bal waxa qiyaastaa oo sawir ka qaadataa jaarka guriga ka soo horjeeda ama guriga kugu xiga ardayga jooga ama marxaladda uu ku jiro ama sidaan waalidkii aanay u awoodin inay ka bixiyaan inuu dugsiga dhexe tago ama primary uu bilaabo adiguna maanta inaad heer jaamacadeed bilowdeed oo waliba dal Yurub aad ka bilowdeed waxa weeyaan ayaad u yeelatay nasiib u yeelatay dad baa jira waalidiintoodu ay yihiin dan yar ay yihiin haddana ay jecel yihiin inay jaamacad Yurub wax ku soo bartaan lagana yaabo inay idinku dhex jiraan haddana kaas waxa laga yaabaa inuu dayaco fursadda qaaliga ah hooyadii laga yaabo inay suuqa inay muuska ku iibinayso oo doonayso inankeedu inuu noqdo hanti ay iyadu beeratay inuu noqdo qof iyaga ka faa'iido lahaa beritoole laakiin maanta aanu isagu garabshiyaha lahayn
geesta kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta ay ardaydoodu fursadda waxbarasho ka heshay dalka Turkiga. wadamo badan baa geligooda baabaayay maanta sababtoo generationkii soo kacayay ayaa dambaska noqday waa ma xanuunka HIV-gu ilaahay naguma keeno wax dadka muslimiinta ilaahay ka badbaadiyayna uu dambaska ka dhigay taasina waxa weeyaan jidkii la raacayay ayay ka baydheen sababtoo ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuhaladiina aamanuu walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wala soo dhimanin idinkoo alla u hoggaansamayaan buu leeyahay marka koowaad waxaan idinku dardaarayaa war waa inaad diintiina ku kalsoonaataan oo aad ku dheganaataan markaasuu qofku qof qiimo leh noqonayaa oo dadkiisa iyo diintiisa anfaca haddaad markaa meel kasta oo waalidka ka qarsoon ama markaa bay'adii aad la nooleed ka qarsoon ilaahay wuu joogaa wuu ku arkaya ku xisaabinaya waxaan rabaa markaa inaan idin sheego in aad markaa rabtaan inaad waxbarasho u baxtaan waxbarashadu markaasi kaliya dadaal kuma timaado yacni qofku ardaygu inuu dadaalo dadaalku waa qayb ka mid ah juhdiga la bixinayo laakiin waxa kale oo jirta duco inuu ardaygu la yimaado inuu ilaahay waxbarashadan uu barayo uu uga yeelo markaa mid naafica oo adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba anfacda kolkaas bay waxbarashadu noqotaa mid markaa faa'iido leh gabagabadii qaybo ka mid ah ardayda fursaddaasi waxbarasho helay ee Sahal Enterprise ay caawisay ayaa halkaasi ka hadlay iyagoo u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay inay waxbarashadaasi helaan. Anigu waxaan u mahad celinayaa horta maanta koowaad waxa iska leeyahay Ilaahay caawina kulansiiyay ilaahay noo suuro galiyay goolkeena iyo himiladeena aanu soconay inta dheer iyo muddada dheer aan sugaynay ilaahayna nabad qab haynoogu dhameeyo safarkeena iyo inta inoo hadhay insha Allah waxaan mahad kale u celinayaa shirkadda Sahal oo xoog iyo laxaad inoola dadaashay oo habeen iyo maalinba aan ka seexan sidii aynu heli lahayn fiisiheena shirkadda Sahal Enterprise ayaan u mahad celinayaa intaasoo dhan inoola soo tacaalisay hawlaheennana inoogu wadii si aan gaab ku jirin oo aad inoola tacaalisay waxaan kaliya oo aan dardaaran yar oo waalidiintu in badan ay tiri aan u sheegayaa ardayda wax kala qaadata waalidiinta waxa la dhahaa way iska hadlaan inaga daaya baa la dhahaa ardayda waxaan kula dardaarmayaa wiilal iyo hablo kulay hablaha de gabadh la diray waxa loo diray inay wax barato hooyo ka maarantaa ma jirto gabadheeda hooyo ka maarantaa ma jirto gabadheeda oo de ma ogolaan lahayn in ay gabadheedu meel ka aado kaliya waxay u dirtay waxbarasho gabdhaha waxaan leeyahay hadafkeena iyo himiladeenu ha ahaato waalidkeen wuxuu inoo diray aynu ka midho dhalino Sagal Beldeq Axmed Hoon Cable TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida